بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دروستنا في Soomaaliga ahayd baan sii wadnaay waxbarashadeennii inoo taxanahay waxa aynu maanta qoraynaa qaybtii ugu dambeysay af Soomaaliga waa aynu ugu talagalay wixii ka dambeeya dadku inay iyagu buugaagta af Soomaaliga raadsadaan ama internetka ka akhristaan waxaanu gelaynaa erayadii kalimaadkii waxaanu ku bilaabaynaa kuwa ugu yar laba xaraf ka kooban af oo kale af ay fa qoro ku kooban il iyo la ku kooban il ri da soo hamsay waxa laga saaraa ri lo af il ri lo kusii dara waxaa kaloo la mid ah may halkaas baynu deenaynaa intaa kuwa labada ku dar dheg dhegtaa weeyaan lug waa lugtii kab ku dar kab kabihii la gashanaya saac ku dar saac wan lax waa xoolihii lax hal hasha geela wey awrku isagoo yaraa hawl badan ku dari mayno waxaynu kala ku daraynaa beer iyo buur waa kuwaynu kusoo dhiganay suuraddii hore buur waa shaqalka dhaadheer leh haan waxaad ku dartaa qalin iyo buug qalin buug sabuurad sabuuradda markaa qofka loo kala qaybiyaa inta dhawaaqay leedahay waa sa iyo buu iyo rad saddex cod weeyaan codkaas waa lagu xisaabtamaa sa hadha markuu loo yeedhayo ardayga sa iyo buu iyo rad saddex cod weeye saddex cod bay noqonaysaa sa markuu qoro haddana buu qorayaa rad buu qorayaa erayada dhaadheer saasaa loo bara ardayda waayo halkaas baynu u joojinaynaa markaa wixii dambe qof dadku waa inay bugaagta ay soo iibsadaan xarfaha labalaame ee shadka oo sida bare oo kale iyo bare iyo bare waa inay kala bartaan toddobada xaraf ee labalaama waa in la baro bare halkaas baynu u doonay insha allahu tacaala duruustii hore qofkii u baahan waxa weeyaan channelkan ay ku jirto tani ayuunbaad dib u raacaysaa ama aadam islamic channel baad ka baaranaysaa duruus kaloo fara badan baa ku jirta aadam waxaan u qoraynaa dadkii wixii aan hore u arag aadam islamic channel oo youtube-ka ama google haddaad gelisa waa kusoo baxaysa higaada qur-aankaad gelinaysaa taasaa ku geynaysaa duruus higaada baa ku jirta oo soomaalida walba hadda wa isticmaasho oo ugu fudud ah insha allahu tacaala macallimiintu isticmaalaan manhaj wanaagsan weeyaan 10 darsi qura weeyaan qofka qur-aan ku akhriyayo 7 maalmood dadka qaar ku barteen halkaa wixii macluumaad dheeraad ah iyo wixii magaranaysaa bugaagta PDF-ka ana bilaash baan kusoo diraynaa halka hore emailada iyo waxaa ka qorta fariimo noo soo diraya WhatsApp-yada iyo waxa xagga hoose kaga qoran channelka. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.